degmada Wardhigley oo madaxweyne degan yahay ra'iisul wasaare degan yahay madaxdii labada maamul gobol degan maxay ahayd aqal degan yihiin gudoomiye gobolku degan yahay wasiiradii degan yihiin cid kasta degan tahay xildhibaanadii oo dhan in gudoomiyaha degmadaas magac ku yimaado hatta meesha laga dhalin kari waayo yani doorasho maxaan ka hadlaynaa marka national election doorasho qaran aan ka hadlaynaa maxay tahay meel aanan maamulinba shalay balcado waxba inoo jirin baa 9 qof inta barnaamijka loola soo baxay la gowracay amnigeedii aawa sidoo gale maxay ahayd la foole dagaal xarb ahli laba reer baa isku dilay oo qoriyo isu qaatay muqdisho maxay u jirtaa dhowr kilomitir 13 kilomitir baa malaynaya marka waxaan ka hadlaynaa annaga waxa weeyaan runtii reality-ga jirta waa in la soo dhigaa barnaamijka la keenaa war sidan u qabsamayno waan fail garownayo kulligeen systemkii shacabkeenu naga filayeen ee transition inaan ku sameyn u galno system dimuqraadi ah oo qofku keensanayo mas'uulkiisa hadduu wax qaban waayo inay eri karo mayna sameyn because waxaan ku noqonayaa marba group baa imanaya markii hore aan xalaal ku imanin xaraan inay ku joogaan doonaya arrimo shakhsiya mar kasta inaga hor taagan ardantii guud ee shacabka Soomaaliyeed intayada dibadda ka timi waxaad moodaa majority madaxda u fiirso kulli bar waxa laga wadi dalal qurba war qurbaad ka timi sidee baad uga faa'iideysan weeyday systemyada ku soo caanamaashay wax ku soo baratay marka dalal ku soo noqoto maxaad u isticmaalaysaa wax yani aan democracy riixayninba because arrimo shakhsiya markasta arrimo shakhsiya awgeed arrimo shakhsiyana guul laguma gaaro dalan laguma dhiso mareykankaas dalka adduunka ugu xoog weyn raggii halkaa gaarsiiyey projectadu may dejiyeen laakiin iyagoo projectii xataa fulin bay dhinteen laakiin carruurta awoowayaashood ay awoog u noqon doonaan si ay annaka u maamulaan kuwan awoog u noqonayno ayay ka shaqeeyaan mustaqbalka professorka arrintuu ka hadlayay jiilka dambe ayaabaa laga sii shaqeynaya annaguna waxaan ka hadlaynaa maxaan aniga maanta heli karaa sidee baan awood sii joogi karaa seen lacag u samayn karaa seen sare daaro u dhisan karaa waa ka dhimanaysaa berigod baa inta mara cad lagugu duuba god lagu gelinaya sarahaas iyo lacagaha kulama gelayaan صح waxaarna ilaahay ka baqno oo waxaan u dhaaranay difaaca dadka iyo diinta u dhaaranay siyaasi saddexdaas qabanaya weli ma arag anigu runta fiican waa ku wada jirnaa kulli dambiga wada leenahay haddii waxaa la yidhaha hal tufaax baa ayaa qurmiyay inta kale systemka haddii aad ku timi awooddaada iyo lacagtaada iyo khiyaano aad ku timi cid aad u shaqaynaysaa ma jirto leanna yaa ku keenay 14 milyan baa ku keenay mana diyaarinayso 15 milyan systemka inay iyagu awood ku yeeshaan ma la diyaarinayo